sanki sabaro sageyane sidi fadani santiyewa sagiri kabirki insurne sumad sobest sansa munaasabadan uu soo qabanqaabiyay ururka shaqeeya arrimaha horumarinta dawladnimada ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka iyo caawinta dadka danta yar kaasi ay ku soo bandhigayeen hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ismaatinkan ayaa waxa ururka ay ku soo bandhigayeen muhiimadda hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed uu leeyahay dalka iyo howlaha uu qabanayo ururka waxaana ka soo qayb galay agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha wasiirkii hore ee howlaha guud dhalinyaro xildhibaano hore aqoon iyo marti sharaf kale qaar kamid ah dhalinyarada oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka shaqeynta horumarka dalka waa Tuusha Cali Xaaji aad iyo aad horta u mahadsantiin dhamaantiin dadka halkan ka soo qayb galay xafladan quruxda badan la aad iyo aad waxaan halka ugu mahad celinayaa dadka ka soo qayb galay mas'uuliyiinta sharafta lah oo na soo sharfay halkan noogu imaaday ayaga u mahad celinayaa marka dambe waxaan u mahad celinayaa wiilasha walaalahayga sida quruxda badan u qaban qaabiyay magaaga caashay maaliyeedan ma intan ka mahadnaqay dhamaan dhalinyarta mideynta koonfur galbeed Soomaaliya meel walba iyo raga meelaha hamiin fayla wali eedan ka faraxsana intii mar walba iyo guul deeran sida quruxda badan iyo sharafta badan samacadaan iyo hanageen eedan ka faraxsana gudoomiyaha ururka Saciid Isaaq ayaa ku booriyay dhalinyaradu inay midoobaan ayna ka shaqeeyaan horumarka dalka may bafaday ani galnya isqabsana una adkaayna sida una midooba lahaynan dhamaan reer koonfur galbeed reer arlaadi sida languuleysada lahay una ku taliinan may bana faday may banta mahad gaar iyo mahad guud ee ban ku jeediyay dhamaan dadka ku qeyb galayaasha ka adkaayo marwalba oo ku tirsan ururkan eediyada aan mahadsantiin maxamuud xaaji maxamed abwaan tarash iyo ibraahim isaaq caliyo ayaa u soo jeediyay dhalinyaradu inay horumariyaan dalkooda hooyo tan oo kale eedan ka faraxsan walaa dhiigana ka shaqeeyo walaa una weydiyaaniyo walaa una waysanaaniyo walaa una kontonsan han heesani haanga weydiyaani dad madaysan isiin waysan qoosadaana in markasta walaysan qobadaasan naqadan guud ahaan Soomaali gaar ahaan deegaankiisa ku jeedan ama isin matala agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ahna agaasimaha barnaamijka isxilqaan Maryan Aadan Amiin ayaa ku bogaadisay dhalinyaradu howlaha ay u hayaan dalka waxaan idinku bogaadinayaa hadduu ilaahay ururkiina idii adkeeyo inaad sii tallaabsataan ku wareegtaan gobolada maamul goboleedyada dalka dhalinyarada ficiina ee saaxiibadiina ku qalqaalisiin inay aasaastaan ururadan oo kale isu yimaadaan hidiye dhaqan isku casumaan cambuulo iyo bun isku darsadaan qarahooda dhuuqaan mooskooda wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud injineer Saalax Sheekh Cusmaan ayaa kula dardaarmay dhalinyaradu inay horumariyaan dalka ayna isku duubnaadaan maanta may ka farahay dhalinyaro iyo shileyntu is abaabuli nin weeri na dhahan kaliya ni la hadal taas may tusiyaasay in dhaqanka iyo taariikhda inay noo sheeguli dhalinyaradana inay yihiin dhalinyaro wax fahmay u diyaar ah wadankooda inay difaacaan ay ka shaqeeyaan nabadda taasna waa ku maxsantii ummad walba nolosheeda waxay ku xiran tahay inay noolayso dhaqankeeda iyo taariikhdeeda Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.